gulufka colaadeed ee u dhaxeeya Falastiin iyo Israa'iil ee muddada toddobaadka madaxa la galay ayaa waxay soo taraya dhimashooyinka dhaawaca iyo khasaaraha ka dhalanaya. Dhimashadii ugu dambeysay ee shaacisay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegaysa in 1417 ay dhimashadu marayso halka dhaawacuna uu yahay in ka badan 6700 ruux. Geesta Israa'iil waxay shaacisay in weerarada Xamaas ay kaga dhinteen dad gaadhaya 1300 halka dhaawacuna uu yahay 3200 ruux. Wararkii u dambeeyay ee dagaalka Falastiin iyo Israa'iil warbixintan ayaynu ku eegi doonaa. wasiirka tamarta Israa'iil ayaa sheegay in korontada shidaalka ama gargaarka bini'aadanimo aan loo ogolaan doonin inay maraan marinka Gaza ee go'doonka ku jira ilaa ay Xamaas sii deyso dhammaan maxaabiista ay haysato. Geesta kale hogaamiye ka tirsan Xamaas ayaa warbaahinta Al Jazeera u sheegay inay diyaar u yihiin la geeyo ciidamada Israa'iil gudaha Gaza iyadoo ay jirto calaamado xooggan oo muujinaya in Israa'iil diyaarinayso weerar ka dhana Falastiin kaas oo dhanka dhulka ah si ay uga jawaabto weeraradii ama dagaalkii cuslaa ee Sabtidii soo gaadhay. xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda ee ururka Xamaas oo lagu magacaabo Gaasi Xamaad ayaa yidhi ma cabsanayno, waxaan nahay dad xoog badan, waxaan leenahay go'aan adag, waxaan leenahay dagaalyahano badan iyo dad badan oo na taageersan. waxa uu intaasi ku daro uu yidhi xitaa dadka ku nool xuduudaha Urdun, Lubnaan iyo meel kasta waxay rabaan inay halkan yimaadaan oo dagaalamaan. Gaza ma aha beer ee waxay noqon doontaa mid nagu qaaliya. geesta kale taliyaha ciidamada Israa'iil ayaa qirtay inay ku guuldareysteen ka hortagga weerarada iyo dagaalka ay ku qaadeen Xamaas. waxaana uu yidhi waanu baran doonaa, waanan baari doonaa, laakiin hadda waa waqti dagaal. madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa magaalada Cumaan ee caasimadda dalka Urdun kula kulmay boqorka Jordan Boqor Cabdalla. Boqor Cabdalla ayaa ugu baaqay in si degdeg ah loo joojiyo weerarka Israa'iil ay ku hayso marinka Gaza, bixinta gargaarka bini'aadanimo ee biyaha, korontada iyo sidoo kale adeegyada kale na la furo, isla markaasina marinka Gaza loo furo gargaarada bini'aadanimo. wararkii ugu dambeeyay xaaladda dagaal ee Falastiin iyo Israa'iil ayaa waxaa ka mid ah diyaaradaha Israa'iil ayaa waraaqo ku daadinaya waqooyiga Gaza iyagoo dadka u sheegaya in isla markiiba ay ka baxaan guryahooda oo ay aadaan guryo la yaqaano ama loogu talagalay. kooxaha xuquuqda aadamaha ayaa ku baaqaya in la sameeyo dariiq bini'aadanimo, laakiin deegaanku hadda uma diyaarsanaa. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo booqasho ku jooga Israa'iil ayaa sheegay in taageero militari oo dheeraada Mareykanku siin doono Israa'iil kuwaas oo hub badan. Masar ayaa sheegtay inay hagayso duulimaadyada gargaarka caalamiga ee Gaza si ay u tagaan garoon ku yaala waqooyiga Siiniya ilaa ay sii socdaan weerarada Israa'iil ka geysanayso marinka Rafah. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa ku eedeeyay Israa'iil inay raadinayso xasuuq ay ka geysato marinka Gaza.